dhismaha ciidan awood badan oo cadowgiisa argagax geliya ayaa ah hamiyada ay Somaliland leedahay kuwaasi oo muddada 34 sannadood ah ay jirtay aan marnaba suurtagelinin waana kuwa ku qalabaysan badiba agab daalay kaasi oo aanay ku geli karin hawlgallada haatan iyo cadowga ay ka hortagayaan oo ay suuragal tahay inuu casriga la jaan qaadayo kuna qalabaysan yahay sanad cusub sirriyadaasi loo rumeeyana madaxweyne Ciro oo noqday madaxweynihii lixaad ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa uu sameeyay tallaabooyin u suurtageli waayay madaxdii isaga ka horeysay ee shanta ahayd taasi oo lagu tayeynayo ciidamada kala duwan ee Somaliland sida oo kalena tiradooda iyo tamartooda kor loogu qaadayo haddaba maxaa ka fulay qorshihii Cabdiraxmaan Ciro ee dhinaca ciidanka maxaase weli qabya warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa qorshaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro haatan talada Somaliland haya ee dhinaca ciidamada ayaa ahaa mid gaarsiinaya himilada ay Somaliland ku soo taamaysay oo ahayd inay noqoto dawladda ugu awoodda badan dhulka Soomaalida taasi oo ciidankeedu uu tiro ahaan iyo tayo ahaanba ka dhisan yahay muddo 7 bilood oo ay talada hayso xukuumaddiisuna wax fashilmay lama sheegin balse waxaa jira qorshayaal socda kuwaasi oo aan weli dhamaystirmin waxaana koow ka ahaa tallaabooyinka Cabdiraxmaan Ciro qaaday ee aan gabi ahaanba u suurtagelin ama waqtigu u saamixin madaxdii isaga ka horeysay in ciidamada Somaliland guud ahaanba lagu sameeyo tirakoob taasi oo wax badan ka bedelaysa sidii ciidanka Somaliland uu hore ugu shaqayn jiray waxaana ay arrintani suurtagelinaysaa muhiimadna u leedahay askariga taasi oo xuquuqdiisa uu ku helayo dalacsiinta loo eegayo iyo hawlgallada uu fuliyay sida oo kale waxa ka baxaya meesha nidaamka caaglaha ah ama se askar iska qoran oo qarashkooduna uu dawladda ka baxo hase yeeshee aan wax shaqo ah u qabanin taasi oo uu qorshahan soo afjarayo labadan arrimood ayaa ah laba arrimood oo labaduba muhiim u ah ciidamada Somaliland iyo dawladda Somaliland madaxweynaha ayaa maalinimadii shalay ahayd sheegay in qorshahaasi gabi ahaanba uu soo dhamaaday sida oo kalena ciidanka Somaliland haatan tirakoobkiisa la hayo laba madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa maalinimadii shalay ahayd oo uu ka jarayay xariga saldhig boolis oo dib u cusboonaysiin iyo casriyeyn lagu sameeyay gudaha magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in ciidamada guud ahaanba mushahar kordhintii u bilaabmay waxaana uu madaxweynuhu intaas ku daray qorshahooda tan mushahar kordhinta iyo dhaqaalaha oo kor loo qaadaa inay dhiirigelin u tahay ciidamada iyo qoysaskooda taasi oo ay xukuumaddiisu sii wadi doonto 4 sannadood ee u harsan sanad walbana ay kor u qaadayso 50% mushaharka ciidamada Somaliland tani ma aha arrimaha cusub ee madax kala duwan oo Somaliland taladeeda soo qabatay ayaa sameeyay balse waxay u dhigan tahay tallaabo hore loo qaaday iyo nidaamkii qoriisu dhiibka ahaa oo uu sii dhiirigeliyay madaxweynaha lixaad ee haatan talada Somaliland haya Cabdiraxmaan Ciro ayaa ballanqaadyadiisa waxa ka mid ahaa in tayada ciidamada iyo tababaradooda kor loo qaadayo sida oo kalena saanad casri ah lagu qalabaynayo oo gabi ahaanba laga bedelayo agabka duugoobay ee aan la jaan qaadaynin haatan sanadahan la joogo ee casriga ah waxaana ila wareedyo hoose sheegayaan in saanad military oo casri ah ay xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro ku qalabaynayso ciidamada Somaliland dhawaan taasi oo haatan dalabkeedu maqan yahay lana filayo inay soo gaadho gudaha Somaliland waa qorshayaasha ficilkoodii lagu gudo jiro kuwani balse aan weli fulin waxa kale oo ay khubarada dhinaca militariga ku xeel dheeri ay sheegeen in ciidamada Somaliland dulba tiradoodii kor u kacday oo ay noqdeen ciidan qaran kuwaasi oo markii hore ku kala firiqsanaa jabhadihii iyo dagaaladii ka socday jiidaha bariga ee Somaliland tanina waa tallaabo ka saacidaysa tayeynta iyo kor u qaadista ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland ee kala duwan taasi oo ay ku gudo jirto xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyadoo tallaabooyinka kale ee ballanqaadka ahaa kuwaasi oo laga filayana waqtigu uu ka jawaabi doono waxa ay ka qaban doonto